وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بين أمهد علينا إنه سهلي وإنه فدودي وإنه سوى فتشي كل مضى خير كبضا الله يسوق إيمانيه إله بين أمهد علينا كالبدء إذا وحي كصاب صنتها الضعف البشري أنواعه أسبابه وعلاجه. بني آدم كإنه ضعيف يضعفه هل كوكي مريو يسببها كان إنه ضعيفه إيو سيدابو أود كيالانيا وضعفه وقبحيا. وموضوع كهر لي حقيقة دين ويأذكتها qofku inuu isku sheego inuu daciif yahay inuu taagdaray dacfiga marka aayaadka quraanka la eego kalimatu dacf meel badan bay ku timi macnayaashay xambaarsan tahay waxay isugu soo biyashubanaysaa alxaaja walqilla wadhilla والنقص والعجز inuu yahay qof baahan qof tayayar tiradiisu yar tahay dulaysan aan awood lahayn oo taag aanu ahayn waxyaabo badan oo u baahan yahay ku tilmaaman nuqsaan macnayaashaas oo isu tagay kuwa lamida ayaa looga jeedaa daciifnimada. Allah subhanahu wa ta'ala صدح آيات أيو سعد وشارع إن إنه حوي ضعفنا وضدك ضعفائه وحكم إذا قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا إنسان كوحل أبوري إسقى ضعيفا وتقدر الله سبحانه وتعالى أبوري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الله سبحانه وتعالى وإذن خفيفين وحون أقاذي إن ضعفته وحال تلمامي والله سبحانه وتعالى تلمامي إنسانكو إنو كسمي سيهي وحقيقتي سوأيتهي إنو ضعيفيهي waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo ilaahay waa awood badan yahay kamaalka iyo dhammaystirankana waa jecel yahay hadduu ina abuurayo muxuu daciifnimo inoogu abuuray oo dad awood leh oo dhammaystiran inooga dhigi waayo. taa jawaabteeda koobane waxay noqonaysaa daciifnimada inaynu ka hadlaynaa dhinaca nuqsaan ha ka noqoto لكن دينا كلا وشرف يا كمال كهذا لمين ضعيف إلا نقض بين آدم لكن وحين كهذا لينا أما ضعيف لماذا كهذا لينا وفي مقابل قوة الله وقدرته جل جلاله إلهي مرك لينا دينا عديقه أيا وحين ناهي الضعفاء وباهن وليتا سيدا أوجد الله سبحانه وتعالى سعد شاغي dadku inay yihiin dad baahan isaguna uu yahay ka kaaftoon ya ayuha an-nas antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid. ضعفنا inuu ka hadlayna waa daciifnimo iyo taagdarni hadaynu i'tiraafno oo aynu qiranno oo aynu fahanno weelayno شرف يا كمال يا عز أين كهلين ويعد أين ضعيف كون نقولنا والله جل جلاله عمل كحبناها لقسم يا أبوي إلهي اللي قد ودا والصلاة صلاة وحي ككوبنتها أفعال
ficilada ficilka ugu fadliga badan ee ugu qiimaha badani sidaad ogsoontihiin waa sujuudda wey. aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi wa huwa saajid. maxay sujuudda ugu qiimo badnaat oo ficilada salaada ay noqotay tad ugu qiimaha badan? sababtu waa maxay? waxa muuqanaya baahidaad ilaahay u qabto, taagdarnidaada muuqanaysa, waxa muuqanaysa dullayntaad ilaahay isu dullaynayso. bini aadamku markuu kibra waxaa la yidhaahdaa sankuu taagaa baa la yidhaahdaa. madaxa iyo wejiga waa meeshiisa ugu sharafta badan ee qofkuu kor u taago. sidaa awgeed baa markaad qumaati u taagan tahay meeshaada kuugu sarraysa waa madax oo wejigu uga muuqdo. meeshii kuugu qiimaha badnayd ayaa waxaa lagu faray meeshii aad cagta dhigaysay ugu hoosaysay inaad waxa weeye wejiga saarto. sidaa awgeed baa ficil la sameeyo salaada ugu qiimo badan. salaada waxyaabaha lagu sameeyana waxa ugu qiimo badan ilaahay loo sujuudo. cibaadadu waxay qiimo ku yeelataa marka ay muuqato baahida iyo dulliga iyo taagdarnida aad ku sifaysantahay ilaahay aad u muujisanayso. cagsigeeda cibaadada haddii aad midna ku darto iyo anaa sameeyey iyo muujin iyo wixii la mida, cibaadadaas qiimaheedu hoos buu u dhacaya. addacfu lbashari, bini aadamku inuu daciif yahay ilaahay baa caddeeyey. wa khuliqa alinsaanu daciifa. waxaynu tusaalayaal ka soo qaadanaynaa oo aynu iftiiminaynaa meelaha bini aadamku uu daciifka ka yahay, iyadoo aynaan soo koobi karin, laakiin aynu doonayno jawaanibu dacfi lbashari inaynu wax ka tilmaano. marka laga hadlayo daciifnimada ama taagdarnida, mar waxay noqotaa bulshadu inay daciif noqoto oo taagteedu ay gaabiso. marna waxaa laga hadlayaa qofku lafaahaantiisu inuu daciif noqdo. labada wax baynu ka tilmaamaynaa, laakiin taynu xoogga saarayna waa ta shakhsigaa wey. bini aadamku waa daciif. wuxuu daciif ka yahay xagga jidhka oo jidhkiisu waa taag daran yahay. khuliqa khalqan daciifa. abuurkiisu waa abuur daciifa weeye. xaalado kala duwan buu soo maraa. allahu aladii khalaqakum min dacf. ilaahay wuxuu idinka abuuray dacfi, dabadeedna dacfigaa wuxuu ka dambaysiiya awood buu idin yeelay. awooddaana waxaa ka dambaysa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba. marka hore bini aadamku wuxuu dhashaa isagoo daciifa oo taag daran buu dhashaa. mar dhexaa ilaahay awood siiyaa dhallinyaronimada iyo marxalatulkahl intaanu shaykhuukhada iyo gabowga gaadhin. marxaladaa lafteeda marka loo eego xilligii uu dhashay ee uu yaraa iyo waxa noloshiisu ay ku dambaynayso gabow ah marka loo eego ayuu awood iyo quwo ka muuqanaysaa. laakiin xilligaa laftiisaynu caddaynaynaa inuu daciif yahay oo uu taag daran yahay, dhinacyo badan uu daciif ka yahay. waxyaabaha la yaab kale ee cibro inoogu filan waxaa ka mid a, aniguna aan isweydiiyo, waa laga yaabaa dad badani inaanay hoos usii eegin. waa laga yaabaa markaynu makhluuqaadka qaar isdhinac dhigno inaynu xoog isbidno. makhluuqaad kale markaynu isdhinac dhignana sida maroodiga iyo xayawaanaadka la midkaana yaraanteennu inay muuqato. dacfigeenna waxaa tusaale kuugu filan habeenkii markaynu seexanayno. hadda waxaa laga yaabaa dabeel xagaabaa jirto, waxaa laga yaabaa kaneeco badan inaanay jirin, laakiin xayawaanka kaneecada la yidhaahdo sidaynu uga qalab qaadanno, aynu uga gaashaamanno, aynu uga cabsanno, cid waliba waa dareemaysa. inta uu leegyahayna waynu aragna. mara kaneecaynu ka gallaa,
sunbaynu iskaga buufinaa bahla waxa la inoo keenay leedhka la geliyo oo ur soo deynayo ka eriyay qiiq baa inta la shidaya dadkeena waaweyn ee xooggaale kanaacada yar baynu waxa weeye la jihaadina oo iska ilaalinayna marka banaanada loo soo baxo haday ku qaniinto markay ku qaniinayso qofku dareemi maayo waayo ilaahay wuxuu siiyaa awood intaanay ku qaniinin oo dhigaaga jaqin ay waxa weeye ku taqdiirinayso oo meesha ay doonayso dhigiisa inay jaqdo ayay sooxinaysaa dabeedna iyadoo ka dharagtay baad bilaabaysaa inaad xoqdo markaad xoqitaanka bilowdana maba joogtaba hore u sii socoto waxay tusaale u tahay ضعفiga bini aadamkay tusaale u tahay jawaanibta uu daciifka ka yahay waa badan tahay waxa kamida marxalatu shaykhuukha markuu gaboobo wax badan oo dhalinyaranimadu uu awoodayay baan uu awooday ilaahay wuxuu yiri waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq qirada kalena nankusu fil khalq qofkaanu cimri siino waxaanu dib ugu celinaa marxaladii uu daciifka ahaa abuurkiisii baa dib loo celiyaa maqalkii ma araguna aragii ma socodkuna socodkii ma shahwadii ma cuntadu uu cunaya cuntadii ma waxyaabo badan buu qofku ka daciifayaa ilaa uu ka gaadho kaadida soo bixitaankeeda iyo suu isaga soo saaraya inay culays ku noqoto dhinacyo badan buu ka daciifaya ilaahay waa sheegay ضعفigaas waxa kamida xamalathu ummuhu wahnan ala wahn hooyadii markay siday ee uurka uu ku jiray hooyadiina waa daciifaysay isaguna daciif buu ahaa waxa kamida ضعفigaas الضعف العلمي aqoontiisu inay daciif tahay kuwii aqoonta la siiyay ee cilmiga la siiyay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uleeyahay wama utiitum min al-ilmi illa qalila cilmiga wax yar mooyaane wax kale la idin kama siin wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima shaa ilahi ilmigiis waxba ka gaari maayaan walibana cilmiga yar la ina siiyay waa cilmi jahlina uu ka horeeyay oo qofku markii hore uu jaahil ka ahaa ilowna uu ka dambeeyo waa cilmi labada dhinacba nuqsaani ay ka xigto jaahilnimana waa ka horeys waxana ka dambeeya ilowba ka dambeeya oo qofku markuu weynaado cilmi badan buu ilaawaya bal ilaahay wuxuu ka soo gaarsiiyay qofku si kasta oo uu maskax badan yahay oo uu tilaac ya akhris badan yahay oo aqoon badan uu sheeganayo bari waxa dhacaya ama ku imanaya inaanu ogaanay wama tadri nafsun madha taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut nafina garanayso bari waxa ay kasbanayso qorshayaal baa la sameeyaa balayna la jeexdaa waxa weeye balaynkaas maalin hebla waxa san qabanaya bil hebla waxa san qabanaya sanadka soo socda waxa san qabanaya adigu waad qorsheynaysaa waad ku talagalaysaa tii allana waa meesheeda weeye wixii aad ku talagashay sida aad ugu talagashay inaad wada fuliso ma awoodid sida ogeed ba dadka xarfaanta ay waxa yiraahdaan belen bi bay yiraahdaan qorshaha aan bari ku talagalay haduu dhici waayo qorshe labaad oo kaasi haduu naftayda ka suurtoobi waayo ama xagga allaba caqabada ay ka yimaadaan balen bi ayay waxa weeye dadka qaar samaystaan waxaasi waa maxay waxa lagu tusaya bini aadamka daciifnimadiisa lagu tusaya waxa kamida ضعفiga والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وحين دلني إنه وح جراد يوح أقونا يوح جرشا بدنا الله
oo wixii ina dhibaya laynaga ilaalinayo markaasuu alla subxaanahu wa tacaala waxa weeye cilmi iyo aqoon ina siiyey aynu wax ku kala soocayno waxaa ka mid ah dacfiga ka mid ah dacfu alcaziima wa dacfu aliraada qofku inuu daciif ku yahay xagga go'aan qaadashada wax badan oo aad jeceshahay baadan samaynay oo aad ka caajisaysaa wax badan oo aad doonayso oo dantaada iyo mustaqbalkaagu uu ku jiraad ka gaabinaysaa waxaad uga gaabinaysaa doonitaankaaga dacfi ku jira waad jeceshahay laakiin go'aan qaadashadii baa kaa dhiman oo aad ka daciifaysaa wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa muslimka markii alla subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam uu abuuray ayaa waxaa la sameeyey jidhkiisaa la sameeyey waa la qaabeeyey laakiin nafta in lagu abuuro oo uu dhaqaaqo ayaa alla subxaanahu wa tacaala dib u dhigay shaydaankiibaa ku dul dawaafay oo ku dul wareegay isagoo doonaya inuu ogaado makhluuqan cusub ee alla subxaanahu wa tacaala u abuuray fajacala ibliisu yatuufu bih ibliis baa wuxuu gudagalay inuu ku wareego oo uu ku dawaafo wuxuu arkay ibliis inuu yahay ajwaf abuurka nabiyullaahi aadam la abuuray inuu yahay mid calool leh oo dhexdiisu qaawan tahay oo dhexda uu ka daloolo daloolkaasina uu u baahan yahay in la buuxiyo ayuu ibliis arkay dabeedna wuxuu ogaaday annahu khuliqa khalqan laa yatamaalak aadam calayhi salaam in la abuuray iyo ibni aadamka abuuritaan aanu waxba xejisanayn baahiyihiisa iyo xaajaadkiisa aanu iska difaaci karin khuliqa ajwaf shaygu markuu dhexda ka daloolo waxaa fudud inuu isku dhaco isku dumo marka calool laynoo sameeyey calooshaasina u baahan tahay in la buuxiyo cunto iyo cabitaan iyo wax la mida ay u baahan tahay xaajada iyo baahidaasaa waxay keenaysaa haddii qofka ay ku timaado inuu meelo badan u jeedo hadday xaaraan tahay hadday tuugo tahay hadday tahay wax ilaahay ka xarimay khamri iyo khansiir iyo wax la mida shahawaad badan oo loo diiday inaanu ka xejisanayn taana insha allahu tacala waynu sii caddayn doonaa dacfiga waxaa ka mid a addacfu nafsi bini aadamka naftiisu inay daciif tahay oo qofku naftiisa aanu xakamayn karin wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la ammaaratun bisuu ila maa raxima rabbii imra'atu lcasiiz waxay tihi naftayda bari yeeli maayo waayo naftu dadka waxay fartaa oo amartaa xagga xumaanta ka hadalkaa odhanayana waxaa lagu sheegay inuu yahay yuusuf calayhi salaam isagoo tawaaducaya naftu waxay jeceshahay xagga shahawaadka walidalik baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xujibat innaaru bishahawaat lafdiga bukhaari xadiidku waa muttafaqun calayh naarta waxa lagu xijaabay wixii naftu ay jeclaysanayso markaa sida shahawaadka loo dabagelay ee loo macaansanayo ayaa waxa weeye naarta loo daadanaya shahawaadkaas naftu ay jeclaysanayso ay ugu weyn tahay shahwat lfarj shahwada farjiga oo sababta aayaddaasi ay ku soo baxday ay tahay yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa salaf badani waxay ku macneeyeen wa khuliqa alinsaanu daciifa insaanka waxa la abuuray isagoo daciifa ay laa yasbiru can innisaa dumarka isagoo aan ka haysanayn oo shahwadiisa galmada aan xejisan karin oo aan xamilayn ayuu alla subxaanahu wa tacaala abuuray sababtay culimmadu sidaa u leeyihiin aayadihii ka horreysay waxaa laga hadlayay dumarkii la xaaraantinimeeyey waxaa laga hadlay
qofka muslimka ah inaanay u bannaanayn gabadh addoona inuu guursado ilaa laba shardi in la helo mooyaane. shardiga koowaad inuu gabadhaasi noqoto gabadh mu'minada, shardiga labaadna gabadh xora guurkeeda inuu awoodi waayo. dalika liman khashiya alcanata minkum, waa markuu zina ka baqo ee naftiisa u baqo ayaa alla subxaanahu wa tacaala gabadhii addoonta ahayd loo banneeyey. iyadoo ilaahay uu taa tilmaamayo ayuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi yuriidu allahu an yukhafifa cankum, ilaahay wuxuu doonayaa culayska iyo dhibka idin haysta inuu idinka fududeeyo oo waxa aydan ka xejisan karin inuu idin sahlo oo jaanisya uu idin siiyo. wa khuliqa alinsaanu daciifa, insaankana waxa laga abuuray inuu yahay daciif oo aan waxba xejisan karin. saciid ibn lmusayib oo taabiciintii waaweynaa ka mid ah bal lagu tilmaamay inuu yahay khayru taabiciin afdal taabiciin wa khayruhum uwaysun ama alafdalu fabnu lmusayabi wa kana alcamalu. cilmiga iyo waraca iyo cibaadada iyo maamuuska raggii taabiciinta ugu waaweynaa buu ahaa saciid ibn lmusayib. markuu gaadhay 80 sano uu gaadhay 80 jir uu gaadhay ayaa wuxuu yidhi cimrigaygu 80 buu marayaa, labadayda indhood mid waan beelay buu oo waxba ka arki maayo, ta labaadna way daciiftay, maalinkii baan wax ku arkaa habeenkiina waxba kuma arko. anigoo saasa buu yidhi haddana haddii gabadh iga ajnabiya qol laygu xidho oo aan la gaar noqdo naftayda aamini maayo buu waan uga baqaya. daciifnimadana halkaasaa ka gaadhay buu. taa waxaa sii caddaynaya xadiidkii ku yimi sunani abi daawuud ayaa nin saxaabiya, xadiidkana albaani waa saxiixinaya, nin saxaabiya baa xanuun ku yimi. riwaayadku waxay tilmaamayaan xataa adnaahu lmarad, ilaa xanuunku uu jiifiyey oo uu daaliyey. idnaaguna waa xanuunku intuu kugu dhaco markaad tidhaahda ka soo kac mid horle inuu kugu yimaado. xanuunba xanuun buu u dhiibay, wuxuu noqday baralaati buu noqday, qof aan kici karin buu noqday. dabeedna maalin maalmaha ka mida waxaa u soo gashay inaan cunto u sida ayaa u soo gashay. waa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa saxaabi. fahasha laha, inantiibuu ku farxay, nashaad baa galay. waa nin bilo furaashka aan ka kicin. waxaa la yidhaha hebel intaasoo bilood buu dhakhtarka yaallay. dabeedna gabadhii buu halkii kaga zinaystay walciyaadu billah, xumaantii ku sameeyey. saxaabadii ehelkiisa ahaabaa u yimi iyagoo soo booqanaya, isagoo halkii jiifo baralaysa tacbaana. dabeedna waxaa uu yidhi xaalkaygu waa sidaas, gabadh baa ii timi, gabadhiina waa ku dhacayo waa ka zinaystay buui, nebiga ha laygu tago, xaalkaygana ha loo sheego. aad bay u yaabeen, naftay ka sugayeen, ninay ka filanayeen ma yahay. nabigay u tageen calayhi salaatu wasalaam, nabiguna wuxuu hayaa in xadka laga oogo un wax kale lama hayo. dabeedna si ay nabiga ugu qanciyaan ninkani inaanu xadka iska xijinayn, waxay ku idhaahdeen nebi allow, ninkaas waxaanu awoodi weynaa inaanu kuu soo qaadno, waxaanu ka baqnay an tatafasakha jilduhu can cidaami. ninka haddaanu isnaahna soo qaada, hilibkiisa iyo maqaarkiisa iyo lafihiisu inay kala soocmaan, daciifnimo halka uu ka gaadhay ayaanu ka baqaynaa bay yidhaahdeen. nin xitaa furaashka laga dulqaadi kara maaha oo la xambaari kara maaha oo jirkiisu iska xejin maayo. waxay yidhaahdeen innamaa huwa jildun calaa cadm, waa maqaar iyo lafiisa saaran wey. ninkaasi daciifnimo halka uu ka gaadhay. wamaca dalik gabadh buu ku dhacay. ee maxaa la samaynaya? xadkana iska xejin maayo,
oo boqolka jeedal xabada koowaad ba laga baqaya inuu dhinto wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam boqol caleemood ama laamood oo jilicsan qaada oo isku qabta boqolka laamood oo hal mar si fudud ugu dhufto boqolkii jeedal saasay ku dhamaanayaan waxaan filayaa tusaale iyo cibro qof walba way ugu filan tahay bini aadamku sida uu daciifka u yahay isagoo xaaladda ku sugan buu naftiisa xakamin kari waayay dadka qaarna waxaa laga yaabaa sida hadda dhacda inta la isdhex galo oo la isku milmo rag iyo dumar bal la yiraahdo waa la isa salaamaya oo dhabanka la isu saaro oo sidii rag isu mucaanaqeynaya laabta la isu saaro in haddana la iska dhigayo dad abriya ah oo aan waxba xumaani aanay ka dhici karin waa saaxiibaday waanu wada shaqaynaa ganacsi baa naga wada dhaxeeya jaar baanu ahayn isku galaas baanu ahayn waa iyo wixii la mid ah waxa kamid ah dhacful yaqiin bini aadamka yaqiintu inay daciifto oo si kasto xaqaa'iqda loo tuso yaqiintiisu inay daciifayso taana meelo badan baa lagaga warbixiyay ilaahay wuxuu yiri wa min an-nas man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi dadka qaar baa dhinac shaafalato ilaahay kugu cibaadaysanay cibaadadii iyo salaadii iyo khayrkii iyo wanaagii iyo diintii hadduu khayr kale ku helana wuxuu oranayaa waa waxaagii wax lagu daray waa sii wadaya haddii xaaladdu ka kala kacdana markuu masjidka soo galo waxa weeye waa u daba jeedinaya aayaddu waxay ku soo degtay sida Bukhari ku timi nin baa baadiyaha ka imanaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa soo islaamay markuu soo islaamo haddii xaaskiisu wiil ay u dhasho xadiidka Bukhari ku jira xaasku hadday wiil u dhasho carabtuna wiil bay jeclaayeen faraskiisuna uu dhalo magaalada Madiinana meel xanuun badan bay ahayd jirkiisana uu caafimaad qabo wuxuu oranayaa hada diinun saalih wallahi waa diin wanaagsan meesha wiil waa igu dhashay faraskiyo mudaan ay dhalina waa ii dhalay dabeedna diinta halkaas uu ka sii waday haddii xaasku gabadh u dhasho faraskuna dhali waayo ama caafimaadkiisu xumaado sidii Madiina looga bartay intuu daba jeediyuu oranayaa hada diinu suu diintani diin wanaagsan ma waa dhowr iyo 30 sano ama 40 sano ka hor meelo waxaanu gaarnay dacwadu baanay gaarin waxaanu ugu tagnay nin xoogaa ariya haysta oo aan weligii tukan xayn ariyo haysta weligiina ma tukan salaadii iyo wanaageedii baa looga sheekay oo ku qanaa salaadii buu bilaabay ilaahay baa imtixaamaya duhurka markuu tukado laxbaa dhimata casarka markuu tukado urgi baa dhinta cishaha markuu tukado ceesaan baa dhimata dabeedna culimadii buu la hadlo waxa la yiri ku sabir baa la yiri imtixaan baa kugu socda siduu u waday baa markii hal ceesaani ay soo hadhay ayuu war xoolihiiba dabarku xabadana yaanay dhiman salaada jooji salaadii jooji walibana ma joojine ceesaantaasi markay boodboodaba wuxuu yiraahdaa atajlisiin wa illa sallaytu rak'atayn ama waad fadhiisan mise laba ragcadood baan tukadaa wuxuu ka aaminay salaadu inay leeynayso xoolaha leeynayso inay leeynayso yaqiintii baa daciifa dad badan baa xalkoodu sidaya waxa kamid ah dhacf almu'taqad bini aadamka daciifnimadiisa waxa kamid ah maangaabnimadiisa iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala uu abuurtay oo la doonayo kaliya inuu u cibaadaysto inuu dhagaxan samaysanay ma la yadur wa la yanfa wa ya'buduna min duni Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'u waxaan dib iyo dheefminda ku keenay loox la xarnay ayuu u sujuudayaa oo cibaadaysanay taa waxa ka yaab badan
oo ka cajiibsan qisada uu inooga sheekeeyay Umar ibn al-Khattab oo intay timirtii ay jeclaayeen tay soo qaadaan bay sanam ka sameeyeen qaamo iyo lugo iyo madax baa loo sameeyay wuxuu yiri markaanu waanu caabudna waanu tukana waanu sujuudna waa sanam timir laga sameeyay markay gaajoodaan bay lugta goostaan la waa timir ilaahi uu cibaadaysanay uu cunay kii uu caabudayay ayuu waxa weeye marballo iyo qacan goosanaya waa dhaafiga binaadamka waxa kamida dhaafu tasarruf waxa uu samaynayo inaanay miisaanayn oo uu ku fogan yahay wax dhibaato ku keenay marka aqligiisa uu bandhiga uu fakaro wax badan oo uu diidayo ayuu haddana samaynaya oo uu ku dhaqaaqaya waxyaabaynu ku tusaaleyn karno waxa kamida nin waxa weeye maal qabeena oo ka shaqaysta suuqa asumta ama sheerka suuqa loo yaqaan inagu wali maynaan gaadhin shirkadaha hadda waxa lagu darsadaa sheer baa lagu darsadaa shirkadihii sheerka sameynayay baa meel la isugu wada geynaya shaashada loo sameynaya waxa weeye qofku lacagtiisu diyaarsanaya shaashadaasuu furanaya dabeedna shirkad hebla qiimaheedu waa sii kordhaya sheerarka iga iibiya badhan buu taabanaya waa iibsanaya lacagtana waa u shubaya shirkad hebli hoos bay u socotaa sheerkayga waan iibinaya uu ka baxaya shaashadaasuu ka shaqaynaya malaayiin buu faa'iidaya malaayiinna waa khasaaraya waa nin maalqabeena wuxuu soo fadhiistay xafiiskiisii malaayiin buu kala xisaabinaya xafiiskiisii markuu soo fadhiistay ayuu wuxuu ku mashquulay sheerarkaas midna uu iibinaya midna uu soo iibsanayo siduu u waday baa quraacdii loo keenay waa laga celiyay oo maqay oo mashquulsan barqadii baa shaah loo keenay waa laga celiyay qadadii baa loo keenay waa laga celiyay casarkii baa shaah iyo casariyo loo keenay waa laga celiyay maskaxdiisuna waa maqan tahay shaashad weyn baa halkan u taalla iibi soo iibsadaas oo haya badhamu taabanaya suuq dhanoo aad u weyn baa u furan markii gabalku sii dhacay maaha qof jiifa maaha qof nasiina ku jira maaha waa qof maskaxdiisa iyo jirkiisu uu aad u shaqaynayo oo wax kala xisaabinaya markii gabalku sii dhacayay ayuu kursigii ka dhacay oo uu sooxayo miirkiisa uu tegay waa nin maalqabeena markii baa la isku yaacay ambalaastii baa loo yeedhay hosbitaalkii baa la geeyey baaritaano degdegaa loo sameeyey natiijadii waxay noqday ninka waxba ma qabo gaajo iyo haraad u baahaya waxna ha la siiyo cabitaanna ha la siiyo waa ninkii malaayiinta kala xisaabinayay ضعفiga waxaa ka mida ضعfi ku saabsan xagga bulshada الضعف الاجتماعي oo qofku markuu la macaamilayo bulshada in ضعfi ku imanayo qoyskiisa markuu la macaamilayo ayuu daciifaya qabiilkiisa markuu la macaamilayo daciifaya asxaabtiisa markuu la macaamilayo daciifaya ضعفi kaga imanaya xagga bulshada kaga imanaya ضعfigaasina waa badan yahay ولذلك بقى الله سبحانه وتعالى يري وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى هداد مرخاتي فريسان هداد عيد أمانيسان هداد عيد كلا حكوميسان وحوي أحواشا كانت دول عدالة كددالة ولو آد مرخاتيك كفرتان وعدالة آد كو أكتان تدكي قرابة إذ الله وهي إنسانك markuu waxa weeye ay timaado ehelkiisa iyo qaraabadiisu meel badan buu u seegaya oo u tacasubaya oo waxa weeye xaq badan buu ka tagaya isagoo qaraabo kiil sameynaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam alwaladu mabkhalatun majbana ilmuhu fulaynimu kugu keena oo geesinimo badan oo xaqu kaaga baahnaa baad ka baqaysaa jihaadka aadimaysa caruurtii baa agoomoobeysa mabkhala bakhiilnimo badan buu kugu keenaya
oo markuu doonayo qofku inuu sadaqadaysto ayuu ubadka dib u eegaya oo uu doonayo iyaga inuu wax u dhigo waxa tusaale kuugu filan saxaabigii weynaa Xaatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala an wuxuu kamid ahaa raggii Badar ka qayb galay wuxuu kamid ahaa muhaajiriintii saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa ayuu kamid ahaa markuu doonayay nabigu calayhi salaatu wasalaam Maka inuu ku duulo ayaa saxaabigaasi wuxuu nabigu saxaabadii faray inaan lala xidhiidhin Maka oo si kadisa lagu galaya qorshuhu ahaa Xaatib ibn Abi Balta'a qoraal buu u qoray ahlu Maka uu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa idinku soo socday diyaar garooba Xaatib ibn Abi Balta'a markuu sidaa leeyahay waa nin saxaabiya walibana waa kuwii muhaajiriinta ahaa ee Badar ka qayb galay uu og yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in ilaahay uu waxyoonay laakiin baahida iyo ubadkiisa iyo qaraabadiisa darayn uu daraynayo ayuu waxa weeye u daciif oo ilaahay iyo rasuulkiisa uu khilaaf oo sirtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu gudbiyay oo cadawgii uu u sheegay waxii baa soo degay nabiga uu sheegaya Xaatib ibn Abi Balta'a waxa uu sameeyay warqadii iyadoo meel dhaxasi socota la soo qabtay oo Miqdaadi Ali ibn Abi Talib uu nabigu u diray way keeneen wuxuu yeeray nabigu Xaatib ibn Abi Balta'a wuxuu ma xamalaka ala ma sana't Xaatib maxaa kugu kalifay waxaad samaysay Xaatib waxa uu rasuulkii Allah nimankan kula socda waa laba midu waa ansaar oo dayagu dagaankooda joogo ubadkooda iyo dadkoodii haysta iyo dad muhaajiriin oo Maka ka yimi kuwa muhaajiriinta ah eheladooda iyo qaraabadooda ay ka soo jeedeen baa difaacaya cidii ka hadhay oo ehel iyo qaraabay leeyihiin anigu laakiin Quraysh kama dhalan nin dhalada ma ihi gaashaanbuur baan la xilfi baan naga dhaxeeya inaan difaaco ayaa waxa weeye naga dhaxeeya waxa ii joogta qaraaba ii joogta waxaan doonayaa qaraabadayda inay ii ilaaliyaan oo waji iyo magac iyo qacana ku yeesho si ubadkayga iyo qaraabada ii joogta ay ugu ilaaliyaan ضعف كغيم حق قرابديس ودغ نغلاداي ايو وحويه waxa soo dhiba u galay xitaa uu kamo ganaaday nabi maxamed alayhi salatu wasalaam waxiinu ku soo dagayo wuxuu nabiga ku yiri alayhi salatu wasalaam nabi allah gaalnimo aan gaaloobay sida uma samayn inaan gaalnimada jeclaysanayna igama ah diinta islaamka inaan dib uga noqdayna igama ah daciifnimada saa loo tixgeliyay oo waxa weeye loogu dambi dhaafay laakiin waxa la tilmaamay oo ilaahay uu soo dajiyay ya ayuha alladheena aamanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ضعفiga waxa kamida ummada inay daciifto oo waxa weeye haday xagga ciidanka tahay xagga dhaqaalaha hadii ay tahay jawaanibta kala duwan ee nolosha inay ka daciifto iyaduna waa ضعفi ummada islaamka hadda aynu ku aragno walibana ummadeena aynu ka dhalanayna sida gaarka ahina iyaduna ضعفigeedu oo aad iyo aad u sii muuqdo maxaa keena in la daciifo asbaabta ضعفiga keena waa badan tahay waxa kamida asbaabta keenaysa at-tab'iyya wat-taqlid qofku cid kale oo ka awood badan inuu dabagalo oo iyaga uu ku daydo sida ibn khaldun rahimahullah ta'ala uu tilmaamo bina aadamku wuxuu jecel yahay cid ka awood badan inuu waxa weeye ku daydo isagoo malaynaya dadka noocaasi kamaal iyo dhamaystiran iyo awood inay gaadheen dabeedna ficiladooda uu koobiyeynayo oo uu taqliidanayo waana maanta waxaynu la ildaranahay inaynu reer galbeedka maanta waxyaabo badan kaga dayanayno sida loo labisanayo sida timaha loo jaranayo sida la isu maamulayo sida waxa weeye loo wada dhaqmayo waxyaabo badan laga soo waaridayo laga soo qaadanayo qodobka labaad ee keena daciifnimada waa at-tanaazu' wal ikhtilaaf illa qaybsamo
oo waxa weeye la iskhilaafo oo markay noqoto xagga diinta waxa weeye ahzaab iyo firaq la noqdo markay noqoto xagga siyaasadda la qaybsamo markay noqoto xagga qabaa'ilka waxa weeye la qaybsamo oo intaas oo inqisaam oo qaybsan oo dadka si waxa weeye salbiya oo waxa weeye khaldan u saameynaya ay waxa weeye dadka ay ku imanayaan الركون إلى الدنيا الدنيا إلا جعليسته أو حويه لقد بدعه أيا يظن أسباب تكمل اللجوء دلوبيه حري النبي عليه الصلاة والسلام يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وحسور دوانا يسوي مريس إن أمضه يسوكين هبر وعدان سيدا كوا حيرد وضعنا يابا أي سوى هبر وعدان نبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام ما أنت ميان يرنا وحور النبي ما عليه الصلاة والسلام لكن وحاتهن ضد بدن وضد حورة وأن قيمة بدن الله أو تقدر وحور النبي عليه الصلاة والسلام وحتى إذن كوكينيا الوهن إن ضعف إذن كوي مادو وحور النبي عليه الصلاة والسلام وهن كنا وحب الدنيا وكراهية الموت inaad adduunyada jeclaysanaysaan geeridana aad dhibsanaysaan waxa kamid ah asbaabta keenaysa tarkul jihaad fi sabiilillah jidka alla in loo dagaalamo oo loo jihaado in laga dhaifo jihaadkuna waa ballaaray waa jihaadun bisinaan wa jihaadun bisinaan waxa weeye arabka in lagu dagaalamo in lagu dagaalamo xoolaha lagu dagaalamo in qacanta laga dagaalamo marba kiimeesha yaala wuxuu nabigu alayhi salatu wasalaam xadiidka Anas jaahidul mushrikiina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum in jihaadka laga gaabiyo oo gaaladiina waxa weeye loo babacdhigi waayo dagaalkii tooska عرب كان حقا لقى عدين وايو الجهاد باللسان او منكر كي لقى هدلي وايو او حويه حولهنا لو جهادي وايو او ماليه خير كي لو بخينيا لقى لقابينيو او لقى لخجلابيو وحيابها ضعفك كينا وحيابها ضعفك كينا waxa kamida الانفعالات والعوارض البشريه قفك بني ادم كاحواشك كلا دوونه كوي مريس عبسي قفك هو عبسني oo haduu khayrka iyo wanaaga u dhaqaaqa uu ka baqayo dib inay ka soo gaadho al khawf oo jubnigu uu kamid yahay waxa kamida an nisyaan haqi illa oo waxyaabo kale lagaga mashquulo ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وانا حالكي كوي من نبي الله ادم عليه السلام به markii Allah subhanahu wa ta'ala uu gadigay geed jannada ku yaala la yiraahdo cuni iyadoo lagu imtixaamayo ayaa waxa dhacday inuu shaytaanku u yimi oo ku yiri hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla ma kuntu saageed hadii aad cuntaad waarayso iyo boqortooyo waligeed ba aan ka baaba'ay geedkaacu siduu u waswaasinayay ayaa waxa ka qalib noqday oo uu ku ilaaway nahyiga Allah subhanahu wa ta'ala ka nahyi geedka inuu cuno ilaahay wuxuu ri fanasiya wixii la faray uu ilaaway walam najid lahu azman go'an oo ku sugnaanaya geedka cunidiisa inuu ka fogaadana ma helin buu Allah subhanahu wa ta'ala inaguna waxa weeye xaalkeenu waa sidaas waxa kamida alhaajaat baahiya bin aadamku uu qabo oo wuxuu qaba baahida cuntada iyo cabitaanka wuxuu qaba baahida hurdada wuxuu qaba baahida galmada wuxuu qaba baahida hoyga meel uu hoydu u baahan wuxuu bin aadamku qaba baahiyo badan buu qaba baahiyahaas waxay keenayaan marka ay ku yimaadaan inuu daciifo asbaabta waxa kamida الذنوب والمعاصي
inuu qofku dambiye iyo macaasi uu ku dhaco dabeedna alla subxaanahu wa tacaala uu cidhiidhi geliyo waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma ilaahay markuu qofku xuska alle uu ka jeesto ee dunuub iyo macaasi uu dhex dabaasho cidhiidhi buu ilaahay nolosha ka gelinayaa ina alcabda layuxramu alrisqu bidanbi yusiibu wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa qofka shaqada in looga eriyo ama meheradiisu ay ku kacdo ama arsaaqad badan uu u seego dambi uu sameeyey awgeed marka cidhiidhigaasi ku yimaadana waxaa ku imanaya dacfi badan waxaa ka mid a waxyaabaha qofka daciifinaya almarad xanuuna inay ku yimaadaan oo wax badan oo khayra uu qabanaya uu ka daciifayo waxaa ka mid a alkibar washaykhuukha inuu weynaado oo uu gaboobo oo waxa weeye haram uu gaadho oo wax badan uu ka daciifo waxaa ka mid a waxyaabaha dacfiga inagu keenaya annahu aslu nash'atina abuurkeennuba inuu sidaa yahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu inaga abuuray wax liitaw inuu inaga abuuray waxaa la inaga abuuray ciid khalaqakum min turaab walaysa min dahab ilaahay dahab inagama samayn ee ciid buu inaga sameeyey maxaa ciid laynooga sameeyey ciiddu waa waxa ugu qiimo jaban wey maanta dahabka inta la kala siista waynu garanaynaa macdanaha kale inta la kala siista waynu naqaanaa laakiin ciid iskama iibiso masjidka haddaad ka baxdo 2 saacad oo ciidoo bilaash ama intaa doontaad guranaysaa walidaalika bay carabtu waxay ku maahmaahaan waxay yidhaahdaan taribat yadaag qacmahaagu ciidoobe yacni caydhoobe markuu qofku kuu jawaabaya wuxuu ku odhanayaa maa laka ila turaab waxaan ciid ahayn kuuma hayo waayo ciid bilaash buu kuu soo guraya yacni ciid waxaan ahayn kuuma hayo macnaheedu waa maxay waxba kuuma hayo ciid baa laynaga sameeyey qiimaheennayna tusaysaa mar labaad waxaynu ka samaysannahay dadkeenna jooga aadan baa ka samaysan ciid oo aynu ka soo jeedno innaguna waxaynu ka samaysannahay mani ilaahay uu ku tilmaama inay tahay maa'in mahiin biyo liita inuu yahay waxaa lagu tilmaamay fii qimati alxaqaara liidashada halkii ugu dambaysa inuu yahay mahiin waa siiqatu mubaalaga min alihaana liidasho halkii ugu dambaysaa lagu tilmaamay walidaalika manidaa la inaga samaynayo ma cid baa ku faanto dibadda ula soo baxda macawistaadoo mani ka buuxdo dibadda miyaad ula baxaysa cidina ulama baxdo waa la yska maydhaa jidhkana waa laga maydhaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa iska maydhayay kunnaa naqsilu lmaniya min thawbi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu maaha inay nijaas tahay nijaas maaha laakiin waa wax la xaqiro oo laga khashaafo oo qofku uu iska maydhayo oo aanu ku faani karin weeye waa waxaynu ka soo jeedno nin boqora ayaa ummadda isugu soo baxday wadooyinkaa la ysu tubay nin waxa weeye ahlulcilmi iyo ahlulfadliya ayaa wuxuu arkay ninkaasoo aan wadada u taagnayna iska fadhiya dadkuna waa tuban yihiin ha la igu yeedha buui waa loogu yeedha wuxuu hi ummadduba waa taagantaha weynaysiinayaan iyo haybada iga haybadaysanayaan adiguna waad fadhidaa shiikhu wuxuu doonay inuu xaqiiqadiisa u sheego wuxuu hi sidee baan kuugu istaagaa wa anta awaluka nudfatun madira wa aakhiruka jiifatun qadira wa anta bayna daka wadaka taxmilu lcadira wuxuu hi maxaa igu khasbaya inaan kuu istaago horta waxaad ka soo jeedaa mani quruna oo la yska maydho ayaad ka soo jeedaa waxaad ku dambaynaysaa markaad dhimato bakti uraya oo maanta meydkaaga haddaan la aasin ilaahay baa ina kala asturaye bannaankaa la dhigo
oo laba saddex cisho aad taallo soo sanka laga qabsan maayo sanka laga qabsanaya qarmuunkaaga laga baxaya taana waad ku dambaynaysaa inta labada u dhaxaysana ee aad nooshahay aad soconayso caloosha saxara kaaga buuxda saxarada aynu caloosha ku sidanay mar walba wax baaqiga aynu yihiin hadii banaanka la soo dhigo ka kugu xiga urinayo miyaynu wada fadhiisan lahay cidina ma wada fadhiisateen marka ninkii boqorka intuu isku khajilay buu aamusay dib ugu jawaabay xaalku waa sidaas ضعفك بن آدم markay ka sheekaynayaan annahu la hawla lahu wala quwwa inaanu awood lahayn waxay ku tusaaleeyeen khaliifkii looranaya Harun al-Rashid ayaa waxa uu soo galay nin maskaxdiisa laxanto laakiin xikmad badan al-hikmatu fi afwaahi al-majanin bal waaragtay ninku markuu ku dhufto meel badan iyo waalid badan buu ka hadlaa xikmado badanna waa sheega nin maskaxdiisa laxanta u soo galay dabeedna wuxuu ri iwaani waxaan doonayaa inaad iwaaniso marka khaliifka waxa hor yaale koobiyaaba hor yaale xuri waana badan ku sheegi maayo koobka biyaha aad cabayso markaad u baahato ee aad haraado hadii koobka biyaha lagu diido oo lagu yiraahdo lagu siin maayo ilaa boqortooyadan aad haysata kala badh aad ka tanaasusho biyaha ma dhaafsiisan lahayd haab ninka sidaa uu kuleeyahay waa kuma waa Harun al-Rashid waa ninka markay daruurtu soo dulmarto oranayay meesha doonta dunida kaga daa ama gibar baa la iga keenaya haday gaala ku daado baadi gaalada laga qaaday baa la ii keenaya haday muslim u daadana wixii beertooda uga soo baxay zakadooda la ii keenaya meesha doonta ku daa waa ninka sidaa u hadlay wuxuu ri boqortooyadeeda kala bar baan ka tanaasulay si aan koobka u cabo wuxuu ri koobkii markaad cabto qayb ba kaadi noqonays wuxuu ri kaadidu haday ka soo bixi weydo maxaad sameynaysaa si ay kaadida kaaga soo baxdo nuska kalena ma ka tanaasuleysaa haab qof kaadidii hayso ay ka soo bixi laada kaadidii ku dhagantahay si ay kaadidu uga soo baxdo nuska kale boqortooyadana waan ka tanaasulayaa wuxuu hadaba waxaan ku sheegayaa madaxtinimada kula weyn kama badna koobka kama badna marna aad u baahan tahay oo cabayso marna qashinkeedu inuu ka soo baxo aad u baahan tahay oo wax walba aad dhaafsiisanayso waxay tilmaamaan nin kale isla khulafada kamid ah nin kale khulafada kamid ah ayaa isaguna wuxuu doonay markay doonayaan inay cadeeyaan bini aadamku sidoo u taag daran yahay wuxuu waxaan doonayaa maanta baraaro iyo farxad halkii ugu dambeysay inaan galo tiimkii la shaqeynayaan ay soo galin buur yaana ay soo galin mar labaad waxaan doonayaa wax kasto naftaydu jeceshahay waa boqor waa khaliifa in halka la igu keeno waxa la yiraahdo halkan ku suurtoobi mayso waa inaad dadka ka dhex baxdaa wuxuu fuulay buur dhaladeed baa guri looga dhisay adoomo badan iyo xaasas badan buu lahaa tii uu ugu jeclaa buu hal ay keen cuntooyinkii kala duwanaa iyo cabitaanadii kala duwanaa ee ugu jeclaana hal ay keen halkaas loogu keenay qof bini aadan ayaanu ii soo galin buu wixii buu isku habaysto gabadhii ugu jeclaa iyo cuntadii ugu jeclaa iyo qof bini aadan oo aan soo galay buurta dusheedii iyo hawadii iyo leedii ay ku dhacayso wuxuu doonay maalinka labadeeda galin oo halka ku qaato waxay yiraahdeen markay dhowr saacadood inantii ay u heesaysay macmacaanadii iyo hawlihii ay meel fiican u marayaan طالب ميلو كيمي أن لجراني وحوي إن أنتي أردون تكجد عين تبى إنه هرتي سبي كل هذا هرتي سبي كل هذا
waxa ilaahay uu tusay isagu wuxuu doonay adduunyadan kamaal iyo dhamaystiran nicmo kii ugu dambeeyay inuu helo sidaas uu maskaxda geliyay ilaahayna awoodiisa wuxuu tusay xaaladii ugu cuslayd iyo murugadii ugu cuslayd in isla ilbiriqsigiiba ilaahay uu geliyo sikina gudahood baa farxadiisu waxay isu badashay qofkii uu ugu jeclaa walibana isagoo indhaha ku hayo eegaya inay waxa weeye hortiisa naftu kaga baxdo ayaa Allah subhanahu wa ta'ala u tusay walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa mar haddii aynu dareennay inaynu sidaa ducafo u nahay maxaynu awood ku helaynaa awooddu waxay ku kooban tahay ilaahay daciifka inaga dhigay oo doonaya isaga inaynu awoodda ka helno inaynu alla subhanahu wa ta'ala aynu qalbigeena ku xidhno acmaasha qalbiga ee kala duwan in aad iyo aad loogu dadaalo rumaynta iyo iimaanka in la xoojiyo ilaahay la rumaynayo xusida ilaahay la xusayo istighfaarta adkaarta kala duwan isticaadada ilaahay laga magan galayo waxyaabaha dacfiga keenaya ee nabigu calayhi salaatu wasalaam ina faray اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر إلهي وحان كان مغان قال يا بخلي بخيل لماذا إلهي وحان كان مغان قال يا فلين لماذا عاجز لماذا إلهي وحان كان مغان قال يا رقي أود شيكتو الدرقية وضعيف قدقة إلهي وحان كان مغان قليا دين إيقا قالب نقطوي ضعيفيسا إلهي وحان كان مغان قليا وحوي أرذل العمر حلقا أساسا قينان قالوا وحيابها صردن بإلهي كان مغان قليا استعادة يا استغفارتي أذكارتي لبتصروا وحكم إذا تقوى الله جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى إلا عبصره وحاود لقيه ليا الاستعانة بالله والتوكل عليه وحكستوا قبر السيلاه لكاشته لا حول ولا قوة إلا بالله التوكل على الله وحكستوا قبريس أذو أسبابتي ذا هي إن الله سبحانه وتعالى لكاشته وإلهي أذو تلسارته ومن يتوكل على الله فهو حسبه نك إلهي تلسارته إلهي باكفرا وحكم ذا وحيابها ود الوهل الصلاة إن وحوي صلاة الوجود ذاله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة نبي هدول عليس تريمه حق الصلاة ده يؤرق حي وودك دقي النبي عليه الصلاة والسلام بلال الصلاة نقول راحة وماشى لقولنا الصنايو النفط حسن لونية أودي كيليسو صدقات كي الزكدي الله بحيو أيوقفكو أود وحوي كهلية الدعاء وأعجز الناس من عجز عن الدعاء قفكو إلهي بريو أود إلهي ويديستو ضعف يتقدر لذا كسار إلهي بريو ضد وحا ضعيف سنه وعاج سيسن قفك أودي ويا الله سبحانه وتعالى بريو وحكم ذو أود له هليا ضدك تشلع سنة تقدر إن وحوي الله نحريستو وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم miyaa laydinku hiilinaya oo laydinku arsaaqaya dadka jilicsan ee aad taageeraysan mooyaane wax kale as-suhbatu as-salihah wal-bi'atu as-salihah jawiga wanaagsan iyo dadka wanaagsan ee la saaxiibayo iyadana awood baa laga helayaa dad badan oo balwadu ay aafaysay marka la yiraahdo iska daa ee uu iska daayo laba saaxiib oo cuna markuu la fariisto ayuu oranaya bahalkiiba igu dhaqaajiyeen qiiqiiba igu shideen wixiiba igu hor cuneen dabeedna dib uu bilaabaya hadda doonayso inaad awood yeelato ilaahayna uu ku cizeeyo ku karaameeyo waxaad ku dadaashaa goobaha wanaagsan iyo dadka wanaagsan inaad u badato waxa weeye aad iyo aad ugu dadaal waxa kamid ah hijra meelaha xumaanta laga hayo inaad ka fogaato oo aadan isdhiibin oo aad ka baxdo waxyaabaha wadda lagu helayo waxa kamid ah ee dhacfiga laga baxayo al-ijtimaa' wa nabdh al-furqa
dadku inay midoobaan oo iskaashadaan oo waxyaabaha kala kaxaynaya oo qabyaaladu ay kow ka tahay laga fogaado oo dadku islaamnimo iyo iimaan iyo khayr iyo wanaag ay waxa weeye ku midoobaan oo waxa weeye kala tagga iyo qabyaalada iyo yasida iyo nasabka illa duro iyo waxyaabaha la midka laga fogaado hadii de xaalku uu gaadhana janno uu gaadhana waxa weeye waa mid ka sii daran ninba waxa la yiri war ma jecesha ilaahay inuu jannada ku galiyo laakiin qabiilka ay yastaan aad hoos u dhigtaan dhalashadeeda lagu siiyo ma jeclaan lahayn isagu wuxuu isku tirinaya qabiil wax isbidaya marka qabiilkii uu iska bidayay baa la yiri hadii qabiilka laga dhigo jannadana lagu siiyo lagu bushaareeyo ma jeclaan lahayn waxa ku dhacday beerka jecel xaydha jecel jannana waa doonay magaca qabiilkaana inuu maqla dooni maayo muxuu ku jawaabay wuxuu yiri haa waan jeclaan lahaa laakiin bi shart hadaanay ahlul jannu iyo ogaani ahlul jannu hadaanay ogaani qabyaalada ila la dagaalamo waxa kamid ah asbaabta kamid ah azwaaj wa inuu xanu soo tilmaanay ضعفiga ugu badan ee dadka ku imanaya xagga dumarka inuu ka imanayo waxyaabaha lagu daweynayo waxa kamid ah azwaaj dhalinyaradu inay guursadaan oo guurka ay ku dadaalaan qodobka ugu dambeeya al-i'tizaz bil islam والثقة به والثقة بنصر الله جل جلاله qofku wuxuu cizi iyo sharaf iyo awood ku dareemaya inuu sharciga alle iyo diinta alle yada uu ku faano oo yada uu ku qanco oo uu aamino wal aaqibatu liman ittaqa wal aaqibatu lil muttaqin wa hawiya ala inna nasra allahi qarib marhadu diinta alle iyo xaqa uu ku taagan yahay in alla subhanahu wa ta'ala uu heelinayo waxaanu ku soo gabagabaynayna oo awood umadu ay ka helaysaa sharaf iyo ciizina ay ku helaysaa adduunyo aakhiro al-akhdhu bi asbab al-quwwa asbaabta awoodda keenaysa maadigaana ay lagu dadaalo oo waxa weeye culumtii maadiga ahayd haday tahay tii ciidanka iyo hadii ay tahay dhaqaalaha iyo hadii ay tahay farsamada iyo warshadaha iyo waxyaabaha la midka علومta noocaas ay ummaduhu adduunyada ay ku horumaraan iyadana in lagu dadaalo oo waxa weeye dad ay u soo baxaan si waxa weeye la isku dhameystiro taa uga ma jeedno sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in lagaga mashquulo cilmigii diiniga oo qofna aanu ka maarmayn laakiin in la helo culumta noocaasna dadku xeel dheeraanaya dadka qaar waxay yiraahdaan baraha bulshadana waa lagu arkaan malaynaya wuxuu soo dhigayaa konton culimada kamida Soomaaliyeed oo dadka la dhageysta tabaadna comment uu ka bixinaya wuxuu oranayaa waxa soo dadoo la dhageysto maanta haday maadiino baran lahaayeen meel fiican baynu gaari lahayn waa laga helaya baraha bulshada waxaana inuu ognahay kunka secondary-ga inooga soo baxa imisa xagga shariicada u bayro ma xagga maadiga loo badayay imisa xagga shariicada xalkeenu waynu ogna xagga maadiga inuu badanna laakiin waa maadi aynaan ku intifaacin way waxaan kaga baxayaa nin culimada islaamka kamida ayaa waxa loo yimi isagoo sahih al-bukhari dhigay ayaa loo yimi nin dadka aynu sheegaynaa baa u yimi wuxuu sheekh انت البخاري يكون مشغول سنيد حدثنا فلان ايا قالدي waxay gaadheen buuri dayaxay gaadheen oo ku dageen buuri wuxuu adigu dayax ma gaadhay ma wuxuu adigu Bukhari-na ma haysid dayaxna ma gaadhin midoo ka soo baxay marka waxay nagu jira dad noocaas oo malaynaya daciifnimada dadkani ay ku jiraan in xagga diinta looga yimi xaqiiqaduna waxay tahay ضعفيني إلهي ونو أبوري وحا ضعفي كسي دري وحوي الدين تاس انت أينو كتشيسني أينو كتغني أي ضعفي قاسنا وحوي إنو غيمي إلهي وحينو كبرينا ضعفينا إنو قويو إن الله سبحانه وتعالى حالكينا وناشيو خيرنا الله سبحانه وتعالى يعزي يبراره
ummadda alla subxaanahu wa tacaala inuu gaarsiiyo inuu alla subxaanahu wa tacaala acmaasha wanaagsan aynu samaynayno ilaahay inuu naga aqbalo tawfiiqda alla subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo alla subxaanahu wa tacaala khaatimada khayr noogu khatimo واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد